magaalada Juba ee xarunta koonfurta Suudaan ee wadanka cusub ayaa la circiiraysa boqolaal dadweynaha kuwaas oo isku soo baxay fagaarayaasha wadooyinka waaweyn si ay ugu dabaaldegaan maalinta uu dhalatay xorriyadda wadankaasi. geesta kale waxaa ka mid ahaa madaxdii ka soo qayb gashay munaasabadda caleemasaarka oo ka dhacday fagaaraha John Garang oo ku yaala bartamaha magaalada Juba. madax fara badan oo ilaa 14 madaxweyne iyo 400 oo ergo iyo mas'uuliyiin isku jirta iyo sidoo kale madax kala duwan oo caalamka ka socota. waxaana ka mid ahaa xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon, madaxweynayaasha Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed, madaxweynaha wadanka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle, ra'iisul wasaare Ato Mala Zanaawi, madaxweynaha wadanka Suudaan Umar Xasan al-Bashir, madaxweynaha wadanka Kenya iyo mas'uuliyiin kala duwan. magaalada Juba ayaa laga dareemayaa farxad iyo raynrayn iyadoo dadka ku dhaqan magaaladuna aad gaabi ahaanba ka dareemaysid in ay la ilmeynayaan farxad awgeed. waxaana caleemasaarka wadanka cusub uu imaanayaa xilli ay mas'uuliyiinta wadamada Afrika ay gabi ahaanba sheegeen inay la shaqeyn doonaan garabna istaagi doonaan wadanka cusub ee ku soo biiray qaaradda Afrika ee noqon doona dalka 54. magaalada Juba oo ah magaalo aad u bilic badan oo dhinacyo badan ay ka maraan wabiyaashu ayaa laga dareemayaa dhismayaal iyo wadooyin hor leh. dadka ku dhaqan waxaa lagu qiyaasaa 1 milyan. magaaladu waxay leedahay wadooyin waaweyn oo dhinac kasta ka mara iyadoo aad arkaysid in ay tahay caasimad dhismaysa. Ahmed Maxamed Jaamac, telefishinka caalamiga ah ee Somali Channel, Juba, South Sudan.